kulan waxaan daawada meel walba aad joogto waxaad kusoo dhawaataa janaalka leh waaye films oo hadaana kale kuusoo gudbiya muuqaalo la xiriira arrimaha Bollywoodka. muuqaalkana maanta waxaan kusoo qaadanaynaa xidigada Bollywoodka ku yimid isqaraabaysi ama qof jeclaysi haddana guul gaare ama aqoonsi hele oo iskugu jira atoorayaal ama atriishooyin kuwaasoo filmadooda had iyo jeer guuleysta, waxaana baadigoob ugu jira film sameeyayaal caan ah. qof isqaraabaysi ayaa in la buunbuuniyo waxaa keentay in Bollywoodka uusan fursad u helin inuu ka shaqeysto qof banaanka ka ah qoys awood ku leh Bollywoodka. waxaa arrintaasi kala hor banaanka keentay atirshada xilli walba muranka dhexda kaga gasha ee Kangana Ranaut. sidoo kalena waxaa arrintan cirka ee gashay markii uu dhintay Sushant Singh Rajput. aan u dhaadhacan warbixintana maanta aan kaga hadlayno xidigada isqaraabaysiga ku yimid Bollywoodka haddana guusha gaaray. aan ku horeysin warbixintan liiska koowaad Tiger Shroff, wiilka J.K. Shroff. Tiger Shroff waa mid dheeshii si fiican u yaqaan laakiin wuu awoodi waayo in xirfadiisa jaliinka uu nagu tuso filimada laga soo bilaabo Hero Banti ilaa iyo Bagi 3, laakiin wuxuu shirkadani ku joogaa magaca aabihiisa. liiska labaad waa Janhvi Kapoor. gabadha uu dhalay film sameeyaha Boney Kapoor ayaa ku soo caan baxday filmka Dhadak oo ah mid guuleystay, wuxuuna soo xareeyay 79.39 karoor. liiska saddexaad waa Alia Bhatt. gabadha uu dhalay film sameeyaha Mahesh Bhatt. Alia Bhatt waxaa soo caan bixiyay Karan Johar oo uu sameeyay Student of the Year, waxaana ku maamushay aragtidiisa xirfadeeda jaliinka sare. qofka afraad liiskana waa Varun Dhawan. waa wiilka uu dhalay film sameeyaha David Dhawan, waxaana shakhsi kale oo uu soo caan bixiyay Karan Johar kuna soo caan bixiyay filmka Student of the Year. wuu cadeeyay janiinkiisa wuxuuna noqday mid dega qalbiyada taageerayaashiisa. liiskan qofka shanaad waa Hrithik Roshan. wiilka film sameeyaha Rakesh Roshan wuxuu ku soo caan baxay Kahona Pyar Hai, haddana waa mid ka mid ah xidigada ugu caansan Bollywoodka. liiska lixaad waa Ranbir Kapoor. waa wiilka uu dhalay Rishi Kapoor, wuxuuna ku soo caan baxay filmka Sawariya. waa mid sameeyay filmo guuleysta iyo mid guuldareystaba, saas ay tahana waa aktarka ugu fiican Bollywoodka. liiska toddobaad waa Shraddha Kapoor. waa gabadha uu dhalay Shakti Kapoor, waxaana ku soo caan baxday filmka Teen Bati. waa jilaa fiican kuna darso waa heesaa, waxaana filmkeeda Aashiqi 2 uu noqday midka ugu guulaha weyn gaaray filmaanteeda. liiskan qofka sideed ku jira waa Shahid Kapoor. waa wiilka uu dhalay Pankaj Kapoor, wuxuuna ku soo caan baxay filmkii Ishq Fishqi. intaas kadib wuxuu noqday mid aan la qaban karin oo uu guulo la gaaray Bollywoodka. intaayaan kusoo xiraynaa muuqaalkeenana kaga hadlaynay xidigada ku yimid isqaraabaysi Bollywoodka haddana guul gaaray.